bismillah assalaamu calaykum kusoo dhawaada isuroon maantana waxaan kaga hadlaynaa gudniinkan oo ay maalmahan sharciyo badan ay ka soo baxeen sharci hore uu jiray hadda sharci ku cusub magaalada Minnesota marka waxaan rabaa inaan kaga hadlo xogaa aqoonta in idinku siyaadiyo arinta ku saabsan gudniinka sida ogtihiin badankiina gudniinka waa dambi Mareykanka lamana la ogolo marka waxaan rabaa exactly waxyaaluhu uu la mid yahay gudniinka in idin kala hadlo سو أكتهين جنينك ودنبي بدن محول لمدي هاي دنبي أهان دنبي لياش متكوب لمدي هاي سو جنينك قبلها أو كير 18 years old أما سيدي تمانك وجنين لمد child abuse سو child abuse نو أكتهين ومركي المها لو حد جود كل عذا حاجة مسكح هذا كركوضة أما حاجة متقانة قلب الضوء جسمي يو قلمة لو واحد جود child abuse gudniinka child abuse la mid yahay waa federal crime waa crime oo dambi aad u weyn oo dhinaca federaalka la mid waxayna la mid tahay serious crime markuu qofka uu arintaas oo kala sameeyo waxay la mid tahay inuu human rights ka uu jibiyay xuquuqda bini'aadanka Mareykanka marka qofka oo ka soo qayb galo oo gabadhaas gudniinkeeda ama xagga caawinaada ama xagga haday noqoto diyaaradda ka caawinaada lacagta ama ra'yiga ahaan ka caawinaada kulligood waxay yihiin dad dambiilayaal ah oo prosecutor lagu sameyn karo xabsina la geyn karo marna gabadha oo la guday baxar ma galayso oo ayadana ma taqaana qof oo dib galay ma aha maadaama minor tahay dibka ayada loo gaarsiiyo baxar korkeeda dhibaato lagu sameeyay marka Mareykanka qof walba oo ka soo qayb qaata gabadhaas gudniinkeeda haday noqoto hooyada ha noqoto aabaha walaalaha kulligood waa dambiilayaal waxyaalaha ugu lagu sameeyay family-gaas reerkaasna waxa in la kala gooyo reerka in ciyaalkii qof kale la siiyo child support qof kale oo ilmaha oo ka qaata adoption loo dhiibo waalidkina waxay halis ku yihiin in xabsi either daa'im in lagu geliyo haday ay yihiin refugee ama qaxooti ama green card ama I-94 haystaan automatically waxa lagu sameeyaa deportation oo wadanka ayaa laga kaxeenayaa wadankooda lagu cilnaa marna kuma soo laaban karo marna immigration kalena ma codsan karo inuu wadanka ku soo laabto qofka xabsina wuu galayaa xabsigaas oo hadda qaanuunka cusub Minnesota ku soo hirgalay waxa waa in qofka hadii xataa looga shakiyo in uu qofkan uu yahay qof jecel in ilmihiisa gudo ama qof jeclaan lahaa hadii fursad heli lahaa waxyaalahaas kali ayaa waxay saameyn kugu yeelan kartaa in ilmaha laga kaxeesto 5 sanana xabsi aad soo cuntid waxaana hore green card-kana oo u sheegay yaa marka qofka ku sheegi karo oo arintan oo dhihi karo heblaayo ma taqaana ilmaheeda rabta inay gudo qofku uu waxa waay ilmahaaga qofka ee la joogan badi sida daycare-ka ha noqdo haday noqoto iskuulaadka macallimiinta dadka iskuulka joogo dadkaas oo idin haday ilmahaaga ka helaan oo ilmahaagana ay arinta lagu soo qaado gudniinka ee dhaan hooyadii aad bay u jeceshahay inay ilmaha anagana gudo inta kaliya ba ku filan in ilmahaaga adiga la idin kala kaxeeyo adigana xabsi lagu geliyo marka fadlan iska ilaaliya arintan gudniinka in aad ma taqaana wadankan aad isku daydaan ama aad jeclaataan ama aad arintan oo ka hadashaan public because qaanuunkan waxaan rajaynaynaa inuunan hirgelin because waxa laga hortagaya qofka xuquuqda uu afkiisa wax ka dhihi lahaa marka saad u ogtihiin qof raba Mareykan oo Soomaali ama Muslim qof raba ma jiro wana yarta haduu jiro oo raba in uu ilmihiisa gudo waayo hadda jaahilnimadii waa laga baxay aqoonti dadkii way wada leeyihiin anigana diinteena ma bana farinba inaan gabdhaha wax ka jarno saa u ogtihiin wax in korkooda laga jaro diinteena ma farin marka meelahaas oo kale ayaa qofka loogu soo gali karaa check up ilmaha markay marayaan oo korkooda la fiirinayo noocyaha oo qofka lagu ogaado waa ilmahan hore uma gudneen haddana waa gudan yahay ama wadanku ku dhashtay haddana waa gudan yahay check up markii lagu sameeyo taana waxay tahay habka lagu ogaado in ilmahaas inuu gudnaan marka waxa fiican inaad kala ogaatid qofka yaa ku ogaan karo yaa ma taqaana adoon isdhayn baxar baad galaysaa ama adoon aad leedahay okay safeguard-keega aan ilaalinaya badan waxa fiican in aqoon u leedahay at the same time intaas ayaa maanta uga hareynaa xagga gudniinka arinteeda waxaan rajaynayaa wixii su'aal aad qabtaan isuroon baadna soo wici kartaan waxaad nagala soo xiriiri kartaan adresska shaashada ku taalo oo faahfaahinaya meesha aan anaga aan deganahay